waxaa musiibo qaran ah in madaxweynaha dalku uu maanta si suuq madow ah ku iibinayo dhulkii danta guud qoray caaradiisna ku barakicinaya shacabkii danyarta ahaa ee ku noolaa dhulalkaas waxaana xusid mudan in dhulkii danta guud lagu sii ballaarinayo dhul ay leeyihiin dad shacab ah awoodda dowladnimadana lagu boobo dhul ay dadweynaha Soomaaliyeed u haystaan lahaansho sharci ah dhinaca beesha caalamka dowladda Soomaaliyeed waxay ku tiirsan tahay kab iyo kaalmo caalami ah miisaaniyadda dowladda waxaa 67% bixiya deeq bixiyaasha caalamka waxaana ku noolnahay duni aan go'aanada loo gaarin sidii loo gaari jiray isbeddello waaweyn oo mudan in si xilkasnimo leh loola falgalana waxay ka socdaan caalamka iyo gobolka aan ku noolnahay waxaa sidaas daraaddeed ilaa hadda la baadi goobayaa quusna laga taagan yahay dhaqaalihii lagu bixin lahaa ciidamada nabad ilaalinta ee loo qoondeeyay Soomaaliya maadaama uu musuqmaasuq iyo habdhaqanka dowladda hadda jirta ee hogaamiyay madaxweyne xasan sheekh ay horseedeen inay dunidu ka sii aamin baxayaan dowladnimada Soomaaliya waxaa sidoo kale xusid mudan in mashaariicdii horumarineed ee hay'adaha caalamiga ah u qoondeeyeen Soomaaliya ay badankood fulintoodii fashilmeen maadaama aanay dowladdu lahayn karti iyo hufnaan ay ku fuliso taasoo horseeday in lacag $5 bilyan ah ku dhow ay dib ugu noqoto deeq bixiyaasha caalamiga ah